السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kulanti wacan wanaagsan daawadayaal dunida meel walba ka joogtaan hadii tahay markii kugu horeysay soo booqato channelkan ama aad muuqaalka daawanayso waxaan kaa codsanaynaa in aad subscribe saarto channelka gambaleelkan aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya muuqaalada halkan aan soo gelino like saarto fiidiyoga hadda daawanaysid siina share gareyso asxaabtaada la wadaagto qaybta hoosena aad noogu reebto wixii aad ka oran lahayd muuqaalkan haddaba sida lagu shaaciyay barta Instagram-ka ee fanaanada qarniga ee Xaliimo Goobaad ayaa shaacisay in arooska iyada iyo fanaanka qarniga ee superstar-ka Muqdisho Khadar Ibrahim Khadar Keyow arooskooda uu dhici doono 25 bisha ugu soo aadan ee Abriil. sidaasi waxaa shaacisay barteeda Instagram-ka fanaanada Xaliimo Goobaad. haddaba Xaliimo Goobaad oo sanadkii 2018 showgeedii ugu horeeyay ku qabatay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya ayaa intay ku sugnayd magaalada Muqdisho waxay si hoosaada isku guursadeen fanaanka qarniga ee Khadar Ibrahim Khadar Keyow taasoo laga soo qaaday sawirro muujinaya inay labadan shakhsi u ka dhaxeeyo jacayl isla markaana ay israbaan inay isguursadaan. tani intaa wixii ka dambeeyay bulshada Soomaaliyeed badankood ayaa u haystay in xiriir jacayl oo rasmi ah uu ka dhaxeeyo fanaanada Xaliimo Goobaad iyo Khadar Keyow inkastoo xiriirkoodu uusan si fiican u sii muuqanin haddana waxaa soo ifbaxday 2 bilood ka hor in gabar ku nool waddanka Mareykanka ay shaacisay inay 2 gabdhood oo mataano ah u dhashay fanaankan Khadar Ibrahim Khadar Keyow sidaasina waxaa xaqiijiyay YouTube-ley ku sugan magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya kuwaas oo saaxiibo dhow ahaayeen gabadhaasi sida ay ku sheegeen barahooda YouTube-ka iyo qaar ka mid ah qaarkoodna ay ku sheegeen bartooda Instagram-ka. haddaba Khadar Ibrahim Khadar Keyow oo lagu tuhmayay in gabadhaasi Mareykanka ku nool ay jacayl ka dhaxeeyo ayaa haatan waxaa soo ifbaxday kadib markay shaacisay fanaanada Xaliimo Goobaad in arooska iyadii Khadar Ibrahim Khadar Keyow uu dhacayo 25 bisha ugu soo aadan ee Abriil. Khadar oo bartiisa Instagram-ka iyo Facebook-ga midna aan ku soo qorin xiriirka uu kala dhaxeeyo fanaanada Xaliimo Goobaad ayaa u muuqata in fanaanadan ayadu ay dhankeeda danayn weyn ay u muujinayso fanaankan maadaama uu jacayl ka dhaxeeyo sida aan ku ogeyna uu ahaa jacaylkooda mid ka soo bilaabmay intay ku sugnayd magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya waxaana lagu wadaa arooskooda inuu dhaco 25 Abriil qabanqaabada arooskan ay bilaaban doonto 20 Abriil sidaasi waxaa xaqiijisay fanaanada Xaliimo Goobaad. inkastoo bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad u raadin jireen xidigan cidda uu jacaylkiisa rasmiga ah Khadar oo aan ahayn dadka inta badan soo bandhiga jacaylkooda isla markaana aan ka soo qaadin sawirro muujinaya inuu shakhsiyaadka u jecel yahay ama gabdhaha uu jacaylka kala dhaxeeyo ayaa u muuqda fanaankan in uu ku hungoobay cidda uu sida rasmiga ah isku guursan lahayn hase haatee hadda waxaa xaqiijisay fanaanada Xaliimo Goobaad in arooskooda uu dhici doono 25 Abriil taasoo bulshada u bidhaamin doonta in uu jacayl rasmi ah ka dhaxeeyo iyo in ay tahay khiyaali. inkastoo lagu dacayadeyn jiray tan iyo sanadkii ay lagu arkay sawirada muujinaya inay labadan shakhsi u ka dhaxeeyo jacayl oo la dhihi jiray fanaanadan ay ka weyn tahay Khadar Ibrahim Khadar Keyow ayaa ka gaabsaday inuu soo bandhigo sawirada Xaliimo Goobaad iyo muuqaalo uu kasoo iskula wadaagayaan jacaylkooda taasoo sababtay in ay kala fogaadaan labadan qof haatan waxay u muuqdaan kuwo isku soo dhawaanaya maadaama fanaanadan ay xaqiijisay in uu xiriir rasmi ah ka dhaxeeyo iyada iyo Khadar Ibrahim Khadar Keyow. arooska fanaanada labadan fanaan ayaa lagu wadaa inuu ka dhaco gudaha caasimadda waddanka Kenya ee magaalada Nairobi taasoo ay ka soo qaybgali doonaan dhammaan fanaaniinta ku sugan magaaladaasi ugu horeeyay Idlayare Sacdiyo Siman iyo fanaanada kale ee qaaliladan Nasiib Cali Maxamed Biibshe iyo fanaaniin fara badan oo ku sugan magaaladaasi iyo dad badan oo caan ah oo wariyaal iyo iskugu jira dad caan ah oo baraha bulshada Soomaalida inta badan laga yaqaano. arooskaasi oo noqon doona arooskii qarniga maadaama labada shakhsi isguursanaya yihiin laba fanaan oo magac iyo muuqba ku leh dhammaan fanka Soomaaliyeedna laga yaqaano lagana xiiseeyo codadkoodana ay taageeraan dad aad u fara badan oo inta badan dhageysta heesahooda. haddaba si kastaba ahaatee waxaa gunaanadka hawshu ay noqon doontaa in 25 bishan Abriil uu arooskooda ka dhaco isla magaaladaasi sidaas rasmigaana intaan ku soo aadanna aan ka sugayno in uu fanaankan Khadar Ibrahim Khadar Keyow isagana uu soo xaqiijiyo maadaama haatan kaliya ay xaqiijisay fanaanada Xaliimo Goobaad balse Khadar Ibrahim Khadar Keyow haatan uusan weli ku soo bandhigin barihiisa bulshada sida Instagram-ka Snapchat-ka iyo Facebook-ga cidda rasmiga ah oo sida dhabta u jecel yahay.